sheeko jacayl ah xusuus iyo murugo qalbigaaga ku waa habeen xasuus mudan qof kasta oo ibnu aadan ahna uu ku qasban yahay in uu qoro ama uu xuso dhibaatooyinka iyo qisooyinka ku dhaco. Waxaan ahaa wiil Soomaaliyeed oo ka hela in uu isticmaalo aaladda internetka si daran wakhtigiisana ku bixiyey aniga oo jeclaysanayo xiriirka aan la samaynayo dad badan aniga oo ula jeedkayga markaasina uu yahay in aan ka barto bulsho iyo asxaab qiimo leh ba. Waxaa habeenada ka mid ah aan kula kulmay meelaha lagu sheekaysto ee aaladda netka aniga oo markasto jeclaa in aan galo qololka diiniga iyo tartanka qur-aanka karimka waxaan kula kulmay qol aan ku jiray ee baltalka gabar iga codsatay in ay i weydiiso su'aalo badan waana u oggolaaday. Waxay i weydiisay magacayga iyo halka aan dunidan baaxadda weyn aan kaga noolahay. Waxaana ku idhi waxaan ku noolahay dalka Egibt. Waxa ay i weydiisay waxa aan ku hayo Egibt. Waxaan u sheegay in aan u joogo in aan ku dhammaysto Leeman. Waxa ay i weydiisay wax xiriir ah in aan leeyahay. Waxaana sida runta ah uga waramay in aana lahayn wax xiriir iyo reerba. Waxa ay iga codsatay in aan xiriirno weliba aniga oo xaqiiqda ka hadlayo. Sida runta ah aniga ma ku xeel dheeri isticmaalka chatroomka iyo qaabkiisa shukaansi mana ihi sida aan maantay ahay oo aan qisada daabacayo sida markii aan isbaranaynay gabadha. Waxaan meeshii ku gaarnay go'aankaas oo ahaa indho aan ayada ahayn in aana yeelan wakhti kastoona aan kulano hagaag inaa subscribe noo saaro walal maxaa diidayo barta Xasan Absuge kala soco qaybta xigto ee sheekada mahadsani.